magaalada Burco ayaa maanta lagu caleema saaray Suldaan Maxamed Nuur Cali oo ka mid noqon doona salaadiinta Soomaaliland gaar ahaan salaadiinta gobolka Togdheer waxaana caleema saarka suldaankani ka soo qayb galay qaar ka mid ah salaadiinta cuqaasha waxgaradka maamulka gobolka Togdheer iyo dadweynaha aad u tiro badan oo ka mid ah beesha Xasan Maxamed ee suldaankani garwadeenka u noqon doono iyo marti sharaf kale oo tiro badan dhammaanba dadkii munaasabadaasi ka hadlay waxay si weyn u soo dhaweeyeen uguna duceeyeen Suldaan Maxamed Nuur Cali oo ka mid noqon doona salaadiinta Somaliland aqoon leh waxgarad leh bulshada u shaqeeya Somaliland aanay ka caban doonin ayaanu halkan hadaanu beesha Xasan Maxamed nahay ugu soo diyaarinay Somaliland waxaan leeyahay suldaanka naga gudooma Somaliland waxaan maanta leenahay waanu ka soo fiirsanay waanu soo laylinay waanu keenay naga gudooma shacabku وإلهي كاير سلطان كإلهي فلوية هوشة لغورة مدعوس معه ومدفلوك مدفلوه كذا أدفوه ستاو قد لا شبه وفلوان الساي إلهي كاير كيو تجارة إلا قوة قرب قلو إلا على مسارك سلطانك محمد نور علي ومانت هل كان يكرد عيسو حفلة ديسي على مسارك هل كان نقول صو قيب قشي إن سواء جيبتي sida wacan sharafta la noo soo ajiibtay waan salaamayaa ka maanta inagu soo beeray waxa weeye suldaan aad u munaasiba aan ogaano oo gacanta ku hayno ka dhigo kii isku wada dadka oo dhan ee aan cid noqon ilaahay ka dhigo ilaahay ha ka dhigo kii aan madaxtooyada u istaagin ee beeshiisa ku xidhno waxa cadeynaysa suldaanka Suldaan Maxamed waxa isu raacay laba walqalood والغش هو وحويه واتي لو مغعابي سلطنتيسه سلطان محمد وهرت والغدي شمانته waa taagantahay gobolaha waxa noo farxada laba dhacdo oo madashan koobsatay sidii tahay caleema saarka suldaanka midina tahay degmada cusub ee ku soo korodhay gobolka Togdheer oo ah degmadii 13aad ee gobolka u yeesho ugu dambeyntiina Suldaan Maxamed Nuur Cali oo ahaa suldaanka madashaasi lagu caleema saarayay ayaa u mahad celiyay cid kasta oo ka soo qayb gashay munaasabada isagoo suldaanku ku baaqay inuu cadaalad iyo sinaan ku hagi doono beesha soo dooratay iyo beelaha kale ee Somaliland mar labaad iyo mar saddexaad ba Ilaahay waa mahad leh mar labaadka waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha sharafta leh ee daraaday u soo bixiyay hoolkan weyn isagoo qof waliba dan uu leeyahay jirto dan gaar ah qof waliba uu leeyahay gaaraha waxaan aad u salaamaya salaadiinta waxaan salaamaya awqaasha waxaan salaamaya ciidamada iyo waxaan ku dhaayay iyo barasaabada iyo nimanka ciidan dadka dawladda u shaqeeya danahoodii ka yimi ee berbere ka yimi ee hargeysa ka yimi ee burco xafiiskeeda ka yimi gidda waan wada salaamaya waxa kale aan salaamaya qof kasta oo hawsha aan maanta aan joogo madasha aan jooga maanta qof kasta oo wax ka qabtayna waa salaamaya حبيب عيق حسن Universal TV مقالة برعو